shirweynihii nabadaynta Soomaaliyeed ee Carta markii lagu guuleystay arrimaha dib u heshiisiinta iyo turxan bixinta khilaafyadii dhex yiilay beelaha waxa loo gudbay furitaanka hawlaha culus ee dib u dhiska qarannimadii burburtay ee Soomaaliya oo ahaa wejiga labaad ee shirweynihii nabadaynta Soomaaliyeed ee Carta wejigan labaad ee shirweynaha waxa ka qayb qaatay ergooyinkii Soomaaliyeed iskugu jiray siyaasiyiintii iyo wakiiladii ay soo xulatay ummadda Soomaaliyeed ee sida weyn ugu xilsaarnaa ay ka talinta dalka Soomaaliya iyadoo la daneynayay guusha gedi socodkii nabadda Soomaaliya ee hormuudka ka ahayd Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyay furitaankii rasmiga wejiga labaad ee shirweynihii nabadaynta Soomaaliyeed ee Carta dawada way dhowdahay ee waa ismaanda maalin farxadeed marka waxa weeye maanta maalin wanaagsan ku soo dhawaada dhammaan jalla madaxweyne maanta waanu faraxsanahay marka Ismaaciil noo arrimi alla la kaasho noo arrimi Ismaaciil weyne noo arrimi ummaddi oyde noo arrimi Ismaaciil noo arrimi alla la kaasho noo arrimi Ismaaciil weyne noo arrimi ummaddi oyde noo arrimi Ismaaciil noo arrimi alla la kaasho noo arrimi Ismaaciil weyne noo arrimi aqoonti oyde noo arrimi Ismaaciil noo arrimi alla la kaasho noo arrimi Ismaaciil weyne noo arrimi aqoonti oyde noo arrimi Ismaaciil noo arrimi alla la kaasho noo arrimi Ismaaciil weyne noo arrimi ummaddi oyde noo arrimi waxaan difaacayaa dalkayga waxaan ka difaacayaa dadkiisa waxaan ku difaacayaa dadkiisa waxaan u difaacayaa dadkiisa waxaan difaacayaa dalkayga waxaan ka difaacayaa dadkiisa waxaan ku difaacayaa dadkiisa waxaan u difaacayaa dadkiisa waxaan difaacayaa dalkayga waxaan ka difaacayaa dadkiisa waxaan ku difaacayaa dadkiisa waxaan u difaacayaa dadkiisa waxaan difaacayaa dalkayga waxaan ka difaacayaa dadkiisa waxaan ku difaacayaa dadkiisa waxaan u difaacayaa dadkiisa dalkeena aanu dooni mayno dalkeena inu dagaala dooni mayno dalkeena aanu dooni mayno ninkadiida dooni mayno ninkadiida dooni mayno dalkeena dooni mayno dalkeena aanu dooni mayno dalkeena inu dagaala dooni mayno dalkeena aanu dooni mayno dalkeena aanu dooni mayno ninkadiida dooni mayno ninkadiida dooni mayno dalkeena aanu dooni mayno dalkeena inu dagaala dooni mayno dalkadiida dooni mayno ninkadiida dooni mayno dalkeena aanu dooni mayno dalkeena inu dagaala dooni mayno ninkadiida dooni mayno ninkadiida dooni mayno ninkadiida dooni mayno allaha mooye ummadda lagu malaha ibna aadamku malaha ayahaga adigale allaha mooye ummadda lagu malaha ibna aadamku malaha ayahaga adigale allaha mooye ummadda lagu malaha ibna aadamku malaha ayahaga adigale allaha mooye ummadda lagu malaha ibna aadamku malaha ayahaga adigale allaha mooye ummadda lagu malaha ibna aadamku malaha ayahaga adigale nabadaanaas la nuugale nabadaanaas la nuugale nabadaanaas la nuugale nabadaanaas
soomaalida kala tagtay oo tacadigu ku dhacay soomaalida kala tagtay oo tacadigu ku dhacay kala tawansiga bulshada kala taagan baday tawfiiqda xumatay iyo tohoshada qalbiga waxay kala tabanayaan takanaya cuqdiba waxaa ila toosan oo aan ku taalinayaa waxaa ila toosan oo aan ku taalinayaa tagtadii in la tuuray iyo tuhun iyo masayr timandadan talinuu tafaraaruq gelin tub quraynan wada marno qarannima la tago kursiga 10 uma dhigme in looga tago kursigu 10 uma dhigme in looga tago awoodda lama taabsadee tartankii ku hela awoodda lama taabsadee tartankii ku hela ninkii gacantaaga ku tira badan kasbada hanoo taliye inaan tifka looga ridin tusaale markaan ka dhigo taxanihii wakhtiga markii shirar hore la tagay tira 12 tusaale markaan ka dhigo taxanihii wakhtiga markii shirar hore la tagay tira 12 tixgelinana mudan markii tuurta la isqabsaday tallaaba la qaaday oon taabana ma dhicin haddaad istilmaanto adoon bulsho weyn ku tebin dastuurka shir weynaha adigoon ka tegin tartiib inaad aamusto aanad noqon takoor tahdiidaadan geysan baa toobigaygu yahay taariikhda xumaatay oo muddo soo taxnayd haddii tashi iyo afkaar hadda la isku tegay taqwaduna ma segtaye waxa taxadir mudan taageeridda kii mutoodiisu tanasushaan derek laki fadaw dul sheya ki derek dembeli karan jabu te dal she disaw derek laki fadaw dul sheya ki derek dembeli karan jabu te dal ke disaw ban ko de dang ma ko piayo dal auladin mel ni tangal si fode ban ko de dang ma ko piayo dal auladin mel ni tangal si fode dagar kabe gadat ken divaw do modaw du si tangal si fode dagar kabe gadat ken divaw do modaw du si tangal si fode ati lisi darsari ilmigin takin idefia isin dalil isin kukoine ati lisi darsari ilmigin takin idefia isin dalil isin kukoine lantu mau dega maleta do nagar hati kalang شعب كدون تنرق ستان اسم لي دركتان لانتو ماو دقا مليت دو لغر هدي كلا تنرق ستان اسم لي دركتان Ogadai sunga dance ten
أنتم عودة مليتدو دقر هديك الله شعب كدون تمرك ستان اسم لي دركتا Ogaday sunga danseteen Hal goriyo de bedale ya ho la sin dumiyo Hal goriyo de bedale ya ho la sin dumiyo Omo de sal sin are ho kabil distan ومدزال سينغري هو قبيل دستان اوغاداي دول كدا شي مسين دافيان دول كان ديباتو دي سوغادا ولي ديباو دكين لي اوغادا دول كان ديباتو دي سوغادا ولي ديباو دكين لي اوغادا دول كان ديباتو دي سوغادا ولي ديباو دكين لي اوغادا دول كان ديباتو دي سوغادا ولي ديباو ugu yeedhayaa Sheekh Umar Faaruq oo in yar ka jeediya halkan haddaad shala ahaydeen walaalkii yaraa maanta walaalkii weynaa baa tihiin haddaad shala ahaydeen wiil yarna maanta idinkaa waalida ummaddii soomaalina dushiinay fuushaa dibna u noqon maysa dawlad la'aan fatwadaydii horena waa haysataan oo waxa weeye intanada ka soo qayb gasho aniga layga bilaabo inala gumaado wey hal haddaan keeni weyno mas-uuliyadda marka aan tilmaamo mudane ismaaciil dushaada fuusha waa mas-uuliya cadiima islaamiya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidka macnihiisa waxaa weeye si aad u dhantihiin xil baa idin fuula qof la arkana xilkaa fuula maalinta qiyaamo waa lagula xisaabtamaya sidaa markuu nabiga arrinta u duuduubay tafsiil buu u sheegay wuxuuna ka bilaabay alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyati imaamkaa markaa nabigu sheegayey ismaaciil cumar geello wey marka xilka u weyn ninka mas-uulka ah ee ummadda horjoogaha u ah wuxuu mas-uul ka yahay ummadda idaylkeed xilkaana qiyaamo waa lagula xisaabtamayaa nabiga xadiidka markuu ku bilaabay kullukum raacin isla kelimadii buu ku dhammeeyey wa kullukum raacin wa mas-uulun can raciyatihi marka raacinimadu qowsaar wey ilaaliyo wey marka haddaad tahay mudane ismaaciil cumar geelle ummaddii soomaali idaylkeed baad maanta qowsaar u tahood ilaalinaysa markaa saddex kelmadood baan taabanayaa kow ummaddii soomaali dowladnimadeedii baa dayacan dalkeedii baa dayacan duunyadeedii baa dayacan diinteedii baa dayacan iyadoo dhan baa wada dayacan adaana ilaaliyo wa marka waa inaad iyaga ilaaliso xataa haddii sida aan filayno allaydankii maamulka maanta waa lagu goynaysan insha allah marka uu samaysmo 10 sano oo ku meel gaarka isla adiga unbaa madaxweyne marka kelmadayda koobaad waxaa weeye ummadda soomaali ee si walba u dayacan ilaali kelmadda labaad waxaa weeye isuma roonee kale ilaali nabigu ina raa'ida laa yakdibu ahlahu nin sahana been ma sheego waxa weeye way isu daran yihiin haddaan iraado dameero xero laysuu geeyo dameero meel laguma xereeyo bannaankay taagtaagin laakiin habeenka laysu keenay dan laga leeyahay mid walba intay labada adin isku taagtay labada dambe ta ku xigta ku dhufata dameero xero laysuu geeyay ka liitaanoo way isu daran yihiin caankiyo bayday isgoynayaane iyaga kale ilaali mas'alada saddexaad waxaa weeye waa qaran been xalaalaysta iska ilaali waa ku khaldayaane
xinka iyo xisaabtanka iyo xaluq jiidka iyo xagxagashaday ku dheereeyaan kolka waxa weeye iyaga ilaali kale ilaali iska ilaali suldaan axmed jaamac xirsi oo ka mid ah ururka bahaha Soomaaliyeed inuu halkan hadal yar ka jeediyo horta qabiilkaygaan idiin sheegayaa qudhaydana waad aragtaan waxaanahay magacayga waxaa la yidhaahaa axmed jaamac xirsi suldaanka qabiilka yibraha la yidhaaho ee markaad iscaayaysaan qofkaad wadnaha goynaysaan qofkaad xumaynaysaan qofka aad mujtamaca ka dhex saaraysaan aad odhan jirteen yibir yahow yibir ku dhalay kuwaasaan ahay hortaan maanta waxaan ku magacownahay suldaanka dulmanayaasha ummadda Soomaaliyeed baan ku magacownahay markaan muddo yar baad haysataa baa la yidhi markii aan hadalkaa dib u raaco suldaanka dulmanayaashu wuxuu ku yimi 10kii sannadood ee Soomaalidu ay kala daadsanayd ee dhiig iyo dhaqanba kala ciil beeshay ee inkaartu ku dhacday dadkii la dulmay ee carruurihiinna ahaa ee dumarkiinna ahaa ee waayeelkiinna ahaa yaan waxaan u noqday suldaan sababtaan ugu noqdayna weydiin sheegaya mid kastaa wuxuu yidhi yibir baan ahaye waxaan doonayaa inaad yibiriga dhigtaan doonaya markhaati waxaa iiga ah anigu Nairobi maalintii Axaddii baan ka imid markhaati waxaa iiga ah ummadda Kenya ku nool suldaanka dulmanayaasha ruux kasta yuu ka cararayaa yaa soo dulmay waa inta halkaa fadhida iyo inta ka dambaysa ee kale ee qaarkood la yidhi shirkayba diideenba kuwaasay ka cararayaan waxaan ku idhaahaa dadka qaarkii waxaan ku idhaahaa aanu ka tan wadaagga leenahay ma waxaad yibirku waa nasab dhimam waataad odhan jirteene ma nasab dhimam baad noqonaysaa baan ku idhaahaa dadka waxay igu yidhaahaan nasab waxaan ahay ninkan ka soo cararay baan nasab ahayne maanta adaa nasabe meel baan u socdaaye meesha intaasay igu yidhahaan gabdhihiinnii hooyooyinkiin waayeelkiinnii waxaad cunteen oo aad laysteen mooyaane waxa ka hadhay aniga wiilkaydii waa la dilay walaalkayna waa la dilay naagtaydii waa la dilay aqalkaygii waa la dumiyey raalli maanta waxaan ku ahay inaad heshiisaan oo awlaaddiinna silicsan iyo ooryihiinna silcay ee qaaradaha Afrika iyo Asia ku silcay ee waxaan munaasabka u ahaan mutay gabdhihii boqolka halaade geela alla kala siisan jiray maanta waxay mudan yihiin ayda aad ogtihiin guryahoodii inaad ku celisaan nabad inaad isu sheegtaan been inaydaan isu sheegin nasabkiinnii inaad soo celisaan aad dumiseen waxaan walaalayaal imika ku soo dhaweynayaa mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo si rasmi ah shirweynaha nabadeynta ummadda Soomaaliyeed inoogu fura وانا لما هراني هذا اللي وحقوق ابوه